wasiirka amniga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa kormeeray xerada daraawiishta Jubbaland ay ku leeyihiin degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. Shariif Axmed Taajir ayaa warbixintan inoo soo diray. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa maanta soo kormeeray xerada ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ay ku leeyihiin duleedka degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo. waxaana wasiirka oo la hadlayay ciidamada uu ku dhiirigeliyay inay u diyaar garoobaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. waxaana xilliga uu hadlayay wajigiisa laga dheehanayay wasiirka inuu aad ula dhacsan yahay dhismaha ciidamadan oo dhawaan dib tababar loogu siiyay xerada tababarka ciidamada ee degmada Doolow oo leedinku amray inaad Ilaahay caabudaan oo Ilaahay ka cabsataan subhanahu wa ta'ala. qofka muslimka mar kasta uu tukanayo oo salaadaha waajibka Allah uu nagu faral yeelay iyo mid sunna inta baan tukanayno waxaan akhrinaa suurada Faatiha. qofku wuxuu yiraahdaa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin. Ilaahay oo adigan ku caabudaa, Ilaahay oo adan kaalmo ku weydiistaa. mana qof Ilaahay ka soo haray oo Ilaahay qeyrkiisa ah oo ama la caabudo ama kaalmo la weydiisto oo wax awoodo ma jiraan. saas ka dhigantaa markii Ilaahay aasamaad iskale subhanahu wa ta'ala naga dhigay muslimiin islaam ah oo diinta islaamka u hogaansantay. Allah aasamaad iskale subhanahu wa ta'ala ayakaas oo taagan inaan anaka burburno oo ciidan ahaan iyo dad ahaan iyo fikri ahaan habac ugu yimaado. waxay arrin casnimo ah aad u leedato. Ilaahay markii intuu waafajiyay intaan isku imaano inaan tashanno aan go'aansano hadafkayga inaan boorka ka jafno. rabbigaas ama had iskale subhanahu wa ta'ala ilaa hanuuninta waxa iskale alla Soomaa. waxaan idinkaga mahad celinayaa ragiina go'aanka markaan qaadanay ficliyan hawsha ay go'aanka u qaatay ka dhabeeyay quruxdan iyo haybadan saaka u fadhiyo. waxaan hubaa hawshaas maalinkan qaadnay ilaa yoomana hada tayan ugu soo tarmata ma ahane waxa naga nusqaamo ma jirin. taas marka Ilaahay waa ku mahadsan. mahad jaaysana waxa kula ragiini nooc kasta isku jiray askari sargaal iyo mas'uuliin guud intaba oo hadafkan iyo mabaadiidan u istaagay oo horumarka qiimaha badan gaarsiiyay xeradan saakaan dhex fadhino. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka Al-Shabaab u geystaan shacabka Soomaaliyeed. waxaana uu rajo ka muujiyay dowladda hadda jirta ee federaalka inay qaaday tallaabooyin muuqda. waxaana uu xusay in ay farxad gelisay shirkii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Kismaayo oo ay qaadatay xukuumadda Soomaaliya. waxaan go'aansanay habic asaga inaan iska bixino ciidankeygii boorka laga jafo. hadafkeygii aan qofka u qaadanay iyo cadawga Soomaaliyeed oo cadawga islaamka ahaa oo cadawga diinta muslimka dhibaateynaya ahaa oo cadawga Soomaaliyeed ahaa oo cadawga caalamka ahaa oo dhabtii habeen iyo maalin danqalashada ahaa oo shacabkayga leynayay oo geedahan taagan oo ognahay oo maalin kasto leynaya dadkayga. hadduu culimo ahaa, hadduu siyaasi ahaa, haddii uu shacab ahaa maata ah oo haween iyo caruur ah. sidii haddaba raxmatullaahi calayhi Allah u naxariisto gabadhii walaasheen ahayd oo ururka haweenka ahayd oo halkaan joogto oo qiimaha badneed ogtiin intiinan intay idin soo hor istaagto Soomaalinimada in kala hadli jirtay ay usbuucan gudihiisa ugu dileen magaalada Beled Xaawo oo habeen hore saasoo kale nin walaalkiin ah ama adeerkiin ah oo ehelaatiin ay ugu dileen Luuq oo habeen kasto ay meel ugu dilayaan qof shacab ah Soomaaliyeed. ogtiin Muqdisho xasuuq ay ka geysanayeen in madaxda dalka u sareysay oo go'aansata maalin kasta in dowlad goboleed xaruntiisa lagu shiro si dadka la isku dhaxgeliyo loo arko dowladda inay hal tahayna waxa waaye waa tilaabo aad u kala fog Soomaa. ciidamada ayaana barxadda weyn ee xerada ku soo bandhigay dholatus ciidan. waxaana la filayaa in dhawaan howlgallo ay ka sameeyaan ciidamada daraawiishta Jubbaland deegaanada u dhaxeeya degmooyinka Garbaharey, Luuq iyo Beled Xaawo. Shariif Axmed Taajir raadiyaha iyo TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Beled Xaawo.